السلام عليكم إنن ولا شيء إنن تيجي مثل شمسال لهذا كل سنة فهم قرباه جوكتا دتك waxay soo weydiiyeen daawadayaasheedu hablahaaga maxaad ugu xijaabi jawaab dheer bay ka bixisay marka fiidiyogu ii soo bixi waayay oo uu ka xiray marka wax jeclaysan halkan ka yara jawaab inantu dhowr point bay ka hadasho waxay tiri horta hablahaga xorriyad buuxda haystaan oo Ilaahay ba xorriyad siiyay qofka muslimka ayna waynu ognahay xor marnaba ma aha Ilaahay buu adooniyahay xorriyaduna waa wax janno iyo cadaab maaragtay lagu mutaysanayo sidoo kale inta walaashay waxay soo qaatay ayadii man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur laakiin waa maxay abaalmarintooda labada qolaba qoladii rumaysa ikhtiyaarkooda ku rumaysan inay janno leedahay qoladii ikhtiyaarkooda ku gaardo inay naar leedahay marka waxa jannadii cadaabta inoo jarayaaba waa ikhtiyaarkaas waxaan u maleynayaa marna ma doonaysid in adiga carruurtaadu adduunka aad sad wada joogtaan aad aakhira ku kala hadhaan sidoo kale waxaad tiri qofna laguma khasbi karo inuu xijaab xidho ka waran imka hadaan ku rahay ilmo yar baan dhalay waxbarashadii uu diiday marka kuma khasbi karayo isagu markuu weynaado ha garto yani qiimaha waxbarashadu leedahay marka insha Allah iska diinay hadii oran la yani ilmaha waa dayacaysa ilmaha ku tarbiyada ilmaha ku dhiirigal ilmaha isagoo yar yani jeclaysi qisas uga sheekeen role model u samee yani xijaabka ah ilmuhu isagoo yar qalbigiisa ku xir xijaabka ma waxbarashada saasad oran lay laakiin marna bay gamaad yeeshaan ilmahayga aan waxbarasho aan maaragtay aan geenin sababtoo ah isaga raali ka ahayn taasi waa adduunyadii bal ka waran aakhirada ka weyneedna ilmahaaga marka aad tiraahid ikhtiyaar ka yeesho laakiin adduunka aad ikhtiyaar buuxa ka siinayn waxaad tusaale ka soo qaadatay khamriga inaan la xaaraantimin markiiba islaamka iimaankooda Ilaahay u qaban in la dhisay taasi waxay ahayd xilliga islaamku soo degay islaamka cusba laakiin inaku diinta islaamka ku dhalan diinta islaamka ku soo korna diinta islaamku way dhameystiranta imka waqtigan اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام الدين وإلهي إمك دينتو way dhameystiranta marka way soo dageysay oo way socotay tarbiyadina way socotay ilmaha inaad sidii baa la doonay iyadoo dhameystiran adigu inta waalid ahaan markaad inaad bilowday inaad ku tarbiyadaysid ilmahaaga step by step intuu yaraa ma aha imka soo dheer waa qofka haduu weynaado aqliyadiisa iyo afkaartiisa iyo shakhsiyadiisa way sameysantay Ilaahay hidayadiisuna kale waa meel gaar sidoo kale waxaad jannada special club ma aha dhamaantood weyn galeen laakiin mid ogeyn inay jiraan dad muslim oo aan jannada galeynin oo naar la geenayo amaashooda darto sidoo kale waxaad xijaabku waa wax fog qofku marka hore waa in sida kale loo dhisaa xijaabku diintu kamid yahay wax fogna maaha inaan kasta markay qaan gaadho inay xirato ka horna in waalid ku soo tarbiyado sida salaada iyadoo 7 jir lagu tarbiyadaynayo Ilaahay baana qofku intuu ku dhimanaya yani intuu waqti haysto imsa iyagoo yar ku dhintay marka salaamu alaykum walaashay waxa shaqeeyay dub isu